وهرين waxaan salaamayaa bahda TV ga saab iyo dhamaan shacabka reer Soomaaliland meel kasta ay joogaan shirkan jiraayada maanta halka aan ku haynaa wuxuu daaran yahay fariimahan ayaamahan ka soo baxaya xukuumadda kulmiye taasi oo xukuumadda iyo dawladda mas'uuliyadda qaranka haysay ay ku eedeynayso dalkeedii iyo madaxdeedii iyo mas'uuliyiinteedii inay yihiin Soomaaliyeed haddaan eegno dastuurka jamhuuriyadda Soomaaliland qodobkiisa koowaad waxa uu sheegay in qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland yahay mid madax bannaan shirkii ka qabsoomay 27kii bishii Abriil ilaa 15kii May 1991 gobolka Togdheer magaalada madaxdiisa Burco waxa ka soo baxay dhawaq aad u dheer kaasoo macnihiisa iyo mu'diisa iyo manfaacadiisu ay ahayd qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland inuu yahay mid madax bannaan oo iskii isu taagay dawladnimadiisii iyo calankii uu ka qaatay Ingiriis ee uu kula mudoobay walaalahoodii waqooyina uu la soo noqday sida darteed Soomaaliland waa dal madax bannaan gooni isu taagiisa waxa damaanad qaaday dastuurka jamhuuriyadda Soomaaliland qodobkiisa koowaad waxa ay leedahay ciidan qaran waxay leedahay astaan waxay leedahay calan waxay leedahay baasaboor ma jirto qof looga baqayo ama shakhsi looga baqayo inuu dhibaato ku noqdo dawladnimada Soomaaliland laakiin se waxa xukuumadda hor yaala inay keento i'tiraaf uu yahay ka ugu baahi badan ee dalkan leeyahay 2010kii bishii June 26keedii doorashadii ka dhacday Soomaaliland waxa madaxweyne Axmed Maxamed Maxamuud Silaanye uu codeeyay 266,906 cod oo u dhiganta 49.51% codkii ay dadku codeeyeen ujeedada codka inta loo siiyay madaxweyne Silaanye waxay ahayd inuu dalka keeno aqoonsi way qaranku u dhameystirnaa haybadii dawladnimada way jirtay taa way ku fashilantay xukuumaddu waxa halkan ka sheegaya qarankii guud ee qaranka Soomaaliland isagoo xil mas'uuliyadeed haya ayuu cararay xamar buu tagay xil buu doontay maray ku xigeenkii TV ga qaranka Naasir Qodax isagoo maray ku xigeenka TV ga qaranka Soomaaliland buu cararay xamar buu tagay xil buu doontay وبالله بين كل داري دولة الشقالة هذه مسؤولين تهذي قرنكو حلالك أهي أنت هرجيسك تجين حمر قبتي حلالك قبتي سعد ما أورن كرنا حكومة دعترتي وكوك شقالة هذه بتجي حمر والسؤال أباهن إن دولة كجواته سؤال شلبادا ويديني حكومة كلمية وحوي مركز الله ده هاي قدوميه برلمان كسومالي لان أيا وكيل هل كان أتشوجه Soomaaliya war miyaanad adigu sheegin oo qarannimadaadii iyo xasaanadaadii iyo sharaftaadii iyo xilalkii iyo xubinnimadii qarannimadaada ilaalin waayeen oo dawladnimadaadii ku sheegay Soomaaliya marka aad leedihiin shacabka reer Soomaaliland waa Soomaali weyn war miyaanay dawladdu dadkeedii aan ku sheegin kuwa in Soomaali weyn taasi waxaan u arkaa inay tahay runtii nasiib darro dalkan iyo dadkani badbaaday inooga baahan yihiin waxay inooga baahan yihiin in mas'uuliyadii iyo karaamadii iyo sharafkii dawladnimadu lahayd u ilaalino maanta waxa jira duufo adag iyo xaalado adag oo nololeed hadii ay tahay abaaraha wadanka ka jira iyo hadii ay tahay sixir bararka baahay ee dhinac walba noloshii dadka saameyn ku yeeshay waa mas'uuliyadii dawladda way qabtay taasina waxa cadeyn u inay ku foogan tahay xukuumaddu wax ka baxsan milgihii qarannimo oo ayadu ay bahdilayso dhawaan waxa ka dhacay mudaharaad baa ka dhacay dalka UK kaasi oo lagu diidan yahay saldhigga military ee dawladda Imaaraadku ka rabto Berbera xukuumaddu dadkii reer Soomaaliland ee reer Berbera ama reer Burco ama reer Awdal ama reer Hargeysa ama reer Sool ama reer Sanaag ee qadiyada diiday waxay ku sheegtay inay yihiin kuwa Soomaali weyn war miyaynu aragnay dawladdeedkeedu ku sheegtay inay yihiin dal kale tan maanta jirta mooy waa amuur Allah intaasaan ku soo gabagabeynayaa waana fariinta aan u diray shacabka iyo jawaabaha uga baahanahay inay xukuumadani ka soo jawaabto waa kuwa wassalaamu calaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh